وإلهي مهدي عادي عاد بان ugu hambalyeynaya dadka reer Soomaaliland codkooda ay bixiyeen hannaanka dimuqraadiyadda ay tahay in lagu doorto hogaamiyayaasha iyo xisbiyada metelaya qaranka ee saddexda xisbi qaran oo socotay muddo hawsheedii iyo ololaheedii iyo shaqadeedii ay yani soo gabagabowday natiijadii hordhaca ahayd oo ay ku dhawaaqeen komishiga doorashooyinku annaguna aanu qirayno inay ahayd natiijo xor iyo xalaal ah waxaan ku hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad qaranka Soomaaliland meel kastuu joogo soo muwaadina oo ka qayb qaatay iyo midkan ay u suurtoobinba waan ku hambalyeynayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka doortay xisbiga wadani ee doortay madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan mar labaad u hambalyeynayaa dhammaan doortay xisbiga wadani inay xisbinimo u doortay daraf ilaa daraf ka doortay Soomaaliland taasoo ay muuqatay in dhammaan sanaaduuqdii cod bixinta mid walba cod laga soo saarayay oo aanu jirin ama ay naadir tahay meel aanu cod ka helin ama ay aad u naadir tahay oo meelo kooban tahay marka dhammaan ku hambalyeynaya doorashadii doorteen xisbiga hogaamintiisa iyo gudoomiyihiisa anigu aan ahay madaxweynihiisa ay doorteen aan soo sheegay madaxweynaha ku xigeenka ay doorteen waan ku hambalyeynayaa waan bogaadinayaa waana uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan muwaadiniinta kala duwan ee sida fiican ee habsami u socodka ah iyagoo xisbiya kala ah u tartamayay waxaan u mahad celinayaa saaxiibadayadii aan u tartamaynay ee sida hufan u tartamaynay waxaan u mahad celinayaa mahad aan la soo koobi karin komishiga doorashooyinka qaranka oo doorashada tan ka garsoorayay ahaa farsamadii iyo shaqadii ay fulinayeen ee ay hogaaminayeen inay doorashadu u dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha hore Soomaaliland oo isaguna suurto geliyay qabashada doorashada madaxweynena si waxa weeye sharciga ku sii ah ilaa 13 December intii uu shaqeynayayna runtii noo ahayn xisbiya mucaarada iyo xukuumad joogta waxaan soo qiraya qabashada doorashadan iyo doorashadii labadii doorasho ku horeysayba in ahaayeen laba doorasho oo mid walba isa saaran oo culeyskeeda leh oo xasaasiyadeeda leh oo ay qabashadeeda ku amaanayeen aan ku amaanayo waa shaqadoodii laakiin bini'aadamku markay shaqadooda qabtaan xilkooda gutaan waa loo mahad celiyaa waan uga mahad celinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay doorashada Soomaaliland oo si positive ama si wanaagsan uga qayb qaatay oo doonayay oo niyad sami ku doonayay in doorasho xisbiya madaxtooyaba waan hambalyeynaya kuwa garashadooda iyo xisbiyada kale ku doortayna waan hambalyeynaya aad baa mahadsantiin dhamaantiin Somaliland guul insha Allah taala wadani guul idinkuna guuleysta dhamaantiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh kala u tartamayay waxaan u mahad celinayaa saaxiibadayadii aan u tartamaynay ee sida hufan u tartamaynay waxaan u mahad celinayaa mahad aan la soo koobi karin komishiga doorashooyinka qaranka oo doorashada tan ka garsoorayay ahaa farsamadii iyo shaqadii ay fulinayeen ee ay hogaaminayeen inay doorashadu u dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye waqtigan maanta madaxweynaha cusub la doortay madaxweynaha hore Soomaaliland oo isaguna suurto geliyay qabashada doorashada madaxweynena si waxa weeye sharciga ku sii ah ilaa 13 December intii uu shaqeynayayna runtii noo ahayn xisbiya mucaarada iyo xukuumad joogta waxaan soo qiraya qabashada doorashadan iyo doorashadii labadii doorasho ku horeysayba in ahaayeen laba doorasho oo mid walba isa saaran oo culeyskeeda leh oo xasaasiyadeeda leh oo ay qabashadeeda ku amaanayeen aan ku amaanayo waa shaqadoodii laakiin bini'aadamku markay shaqadooda qabtaan xilkooda gutaan waa loo mahad celiyaa waan uga mahad celinayaa qof kasta oo ka qayb qaatay doorashada Somaliland oo si positive ama si wanaagsan uga qayb qaatay oo doonayay oo niyad sami ku doonayay in doorashada xisbiya madaxtooyaba waan hambalyeynaya kuwa garashadooda iyo xisbiyada kale ku doortayna waan hambalyeynaya aad baa mahadsantiin dhamaantiin
somalilan guul insha allahu tacaala wadani guul idinkuna guulaysta dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu